koox waxaa jirta talada haysa iyo koox ama xisbiya ha noqdaan mucaaradaysa. kooxda talada haysa mas-uuliyadooda waxa weeye wixii ay qabtaanna inay iyagu dadka u sheegaan, inuu wanaagsan yahayna inay difaacdaan. aniga mas-uuliyadda mucaarad ahaan saaran ee dastuurkii saaray waxa weeye inaan xukuumadda dhaliilo, inaan dhaliishu meeshii ku jirto hadday yar tahay intaan soo saaro aan toosh weyn ku ifiyo si ay kugu suuro gashay inaad adigu aragto. axmed marka ugu horeysa annaga horta dareenka shacabka in la qadariyo oo say u fakarayaan waa midka anaga aan ku shaqaynayno. shacbiga sida dawladda hadda ee ayada ee qaab ahaan ama ciidamada ay u dhisayso ama dawladnimada sida ay matalaadeeda iyo siyaasadeeda wax dhaliil ah iska jiraan, laakiin shaqadana loo diray waxa weeye inaanu dhaliilo dawladda oo aanu dhaliilaheeda sheegno. ammaanteeda waxaa loo dirsaday qofka villa Soomaaliya jooga. haddaad doonaysa inaan dawladda ammaano villa Soomaaliya igee marka ana ammaanayo dawladda oo aan ammaanteeda ula dhaqaaqi doono. waa in kursiga uu baneeyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan anigu fadhiisto si aan u difaacdo policy-gii iyo siyaasadihii aan idinla imay ay igu doorateen. marka sideedaba dadka waxaa haysa faham la-aan ku saabsan dawladnimada. marka dawladnimadu saasay u shaqaysaa. qofka xukunka jooga ayaa difaacda wixii dawladdu ay samaysay. qofkaasay responsibility-ga tahay inuu wanaagiisa iyo wixiisa uu ka sheekeeyo. qofkaasay waajibaadkiisa tahay. wixii markaa ay wanaajiyaan iyaga mas-uuliyad baa ka saaran in ay iyagu ummadda u sharaxaan. laakiin annaga dhaliil baa noo dirteen, dhaliishii baan aanu sheegayna. xasan may daqiiqad wax yar daqiiqad aan raaciyo ma soo gabagayn aan raaciyo waxa waaye Cabdifataax horta waa yani ilaahay khayr ha siiyo meelaha uu taataabtay annaga laftarkeena baarlamaanka ayaad moodaa isfaham la'aanta annaga sabab u ah inay wax la rabo ee shacbigu naga sugayo inay hagaagi waayaan. dawladda maxamed cabdullaahi farmaajo ma laha, khayrana ma laha, maxamed mursal ma laha. dawladda shacabka iskale, annagana adeegayaal baan nahay. haddaan idhaahdo maxamed farmaajo ha sameeyo dawladda waa ammaanayaa, markaan madaxtooye aan tago annagana ma qabato. horta baarlamaan haddaan nahay annaga hawshaas lama qabno. ma gartay markaan xagga taga leen wax qabana inta kale shaqo kuma lihi. annaga waxa cod baarlamaan ma aha. ma gartay annaga shacabkaasi ama jiilaal ha jiro ama aaran ha jiro waxa waaye annaga inaan shacabkaasi inaan ugu shaqayno xubinimada baarlamaan aan annaga u soo galnayna lagu dhaariyo. horta waa taa horta saaxiibkayga meesha uu yara abaaray xoogaa meeshaas waxaan rabaa inaan maya maadaama magacayga la sheego waxaan u maya ha marka may aan yar aan marka aan ka cudur daarto horta inuusan ha maya isaga wax yar waxaan rabnaa haddiiba annaga dawladda horta marka la yidhaahdo dawladdu annagoo dhan baa ka wada kooban oo haddaan golayaasha ama aan nahay shacabka aqalka sare xukuumadda garsoorka saddexda ma aragtay dhardhaar ee dawladdu la isku yiraahdo inteynaba macal madaxtooyada dawladda aan wada nahay. dawladda haddaan cid gaara aan ka dhigno annagana dad gooni aan ka noqono taa laftirkeeda waxa waaye wax kale shacabka noo arkayaan. laakiin waxa waaye aragtida waa ku kala duwanahayo. aragtida mabda'iyan baarlamaan aragtida inaan ku kala duwanaano iyo fikirka iyo aragtida wax ceeb ah ma laha. laakiin cid gaar ah dawladda ma siinayno oo mana uga dambaynayno. cid gaara iskale xukuumadda, cid gaara iskale xukuumadda waxaa iskale aan moogtahay iga dhexgelin. moogta ixtiraamku waa fiican yahay. si nidaamka haddaan la fahamsanayn lagu shaqaynayo shaqadii baa la isku qabsanaa. haddii shaqo lagu diro shaqadii fahamsanayn dhibaata ka imaanaysa. mucaaradka xaq looguma leh xukuumadda markaa jirta wax walbo ay samaysay inay ammaanto. hadday wax ammaan leeyihiin waxyaalo qaranku ka midaysan yihiin baa jira bipartisan. waxaa ka mid ah issueska qarannimada saameynaya. hadda dhulka Kenya inagu soo damacday waa inaan mowqif ka wada istaagnaa. lama siyaasadayn karo mucaaradnimana male. waxyaalo astaamo qaran baa jiro oo laakiin policy-ga xusbiga mucaaradku wuxuu rabaa inuu jagada ka bedelo. baarlamaanka Soomaaliya waxa daciifiyo dhibaatada badan ku ah xukuumadda ay la xisaabtami lahaayeen oo ayadiiba ka awood badan baarlamaanka. halkii baarlamaanku awoodiisu sareyn lahayd oo laga baqi lahaa in xukuumaddii ayba ayadu tahay. hadda tusaale ahaan wasiirka amniga ayaa loo yeeray hadalkiisa ku jirta
wasiirka amnigu ma uusan imaanin dhowr mar ra-iisul wasaaraha loo yeeray ra-iisul wasaarihii ma uusan imaanin marka baarlamaankeena ahayd ninkii wasiir ra-isul wasaaruhu hadduu imaan waayo ama madaxweyne ama cidii loo yeeray haddii imaan wasiirna awood ka qaataan markasoo kuma muuqato in baarlamaanka awooddiisii dhanba ay xukuumaddii hadda qaadato ra-iisul wasaaraha ayaa u yeeray xasanow annaga ma ogin haye waxaana jirin haye baraha bulshada ma loo yeeray ra-isul wasaaraha ya laba jeer anu yeer haye haye weli ma arag annaga xisbiga u yeeraya umayn xisbiga wasiirada xisbiyada u yeeri ma laha ya wasiirada wasiirada loo yeeray waa ogahay haye midna aan kuu sheego haye haddii inta ra-iisul wasaare loo yeedho ama wasiir loo yeedho iman waayo hay-adda dalkan ugu sareysaa waa baarlamaanka waxaan nahay maroodi awooddiisii duurka kula jiro aan garan markaad garan weyda awooddaada dabcan executive-ku waa ku abuse garayn kartaa annagay ahayd in aanu oversight ku samayno annagay ahayd inaanu ilaalino annagay ahayd in aanu sharafta iyo karaamadda iyo awoodda iyo xoogga baarlamaanka ilaalino wax in badan oo naga mid ah ayaan ilaalinay awoodda maxaa u isticmaal la-diin oo wasiirku sheegay annagu sideedaba baarlamaanku wuxuu ka kooban yahay dad aan isku ra'yi ahayn qaar baa ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda la ra'yiya qaarna waa mucaarado waa annagoo kale sheekaduna waxay kusoo noqonaysaa sidii wasiirku sheegay fahamka dowladnimada nooca aynu qaadanay nooca aynu qaadanay maaha carabtii uu xukumayey qofka boqorkii ee wuxuu isagu yidhaahdaa uu sharciga ahaa nidaam haa taynu qaadanay taynu qaadanay waa actually waa ta ingiriiska uu isagu dhaliilayo waa nidaamka dimuqraadiga ee ingiriiska iyo maraykanka iyo maxaa la yidhahdaa reer galbeedku ay ku haddii aan leedahay bedelo oo soomaalidu isku raacday in la bedelo waxba kama qabno laakiin nidaamkii aynu qaadanay fahmi mayna kii carabtaynu madaxa ku haynaynaayo qofku uu ka talinaya yaanu iga dhex gelin dhibaatadeeda ay yeelanaysaa kii London baan qaadanay aynu qaadanay waa dimuqraadiyadda dadna waxay la ra'yilayeen adeer buur mareer iyo afgoy ka sheekay dadna waxay la ra'yilayeen dadna waxay la ra'yilayeen aan dhamaysto dadna waxay la ra'yilayeen mucaaradka marka annagu haddii aanu qolooyinkii mucaaradka nahay ingiriiska waxaanu geynay mushkilad 53 qof baa saxeexay in ra-iisul wasaaruhu yimaado oo la keeno baarlamaanka oo su'aalo ka jawaabo annagana maxaa 70 baan ku diidnay anagoo maxaa fadhiya 70 aan ku diidnay oo ah yaanu iman ayo adi dadku waxaan jirin baa sheegaysaa meesha axsaab maan ka furnay meesha